الرحمن الرحيم جمعة وناكسن waxaan hadda ka soo laabtay aniga iyo wafdigan hogaaminaya booqasho dhowr maalmood aan ku tagnay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta wadankaas oo aan nahay wadan darisa waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo khuseeya danaha labada wadan gaar ahaan xoojinta ganacsiga iyo isu dheelitirka sidii dhaqaalaha wadanka Soomaaliya iyo koodaba loo sii kobcin lahaa gaar ahaan sidii loo furi lahaa xoolaha nool ee aan u dhoofino wadamada khaliijka iyo waxyaabaha laga soo saaro beeraheena si wadanka loogu furo maalgashi shaqooyinna loo abuuro waxa kale oo ka wada hadalnay inaan iska kaashano arrimaha amniga oo aan dardar gelino inaan xogna isdhaafsano kana wada shaqeyno sidii geeskan looga suuri lahaa argagixisada dhammaan arrimahaas aan ka wada hadalnay waa arrimo bilow ah laakiin waxaan isku soo afgaranay inaan xoojino wada shaqeynteena arrinka inta aan meesha joognay gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyay ee ku saabsanaa dekedda Berbera waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee sida aad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekedaha oo ay ag taagan oo ku baxay amarka ra'iisul wasaaraha mowqifka dowladda federaalka Soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la galayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walba ay tahay waxa uu igman kaliya dowladda federaalka ansixintiisana waxa uu igman baarlamaanka sidaas daraadeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqaya inaan soo dhaweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeena inay maal gashato waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra'iisul wasaaraha ka ahay iyo dawladdu madaxweyne ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay'adaha dastuuriga oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda Soomaaliyeedna ay u gmitay inay geli karaan heshiis noocaas ilaalinta midnimada xorriyadda iyo ilaalinta amaanada nala kugu dhiibay ummadda Soomaaliyeed waa waajibka koowaad oo nasaara waana muhiim haddii aan nahay madaxda qaranka inaan ilaalino amaanada ay ummadda Soomaaliyeed noo dhiibatay madaxnimadu waxay tahay inaad shacabka Soomaaliyeed soo hor istaagto aad u sheegto waxa jira marka ay jiraan arrin ay ka murugoodaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed annagu waxaan u dhaaranay idinka inaad difaacno waxaan idin ballan qaadayaa inaad idinka idin difaacayno qof walba Soomaaliyeed laakiin waxa laga rabaa inuu ilaaliyo midnimada iyo xorriyadda ummadda Soomaaliyeed qof walba Soomaaliyeed waxa laga rabaa inuu qaybtiisa qaato qof walba Soomaaliyeed waxa la rabaa inuu soo istaago dawladnimadii Soomaaliyeed way soo laabatay meel fiican ay maraysaa sidaas daraadeed ayaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha raba inay wadankan ka ganacsadaan ama heshiisyo ka saxaan waxaan leenahay hal dariiq kaliya ayaa sax dariiq walba oo kale oo aan ahayn soo maridda hay'adaha federaalka oo loo ogmaday oo ku salaysan dastuurkeena waa dariiq aanan aqbalayn lana tiigsanayna sharciga intaas ka sokow waxa halkan ila taagan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed maalmahan waxay ka wadeen magaalada Muqdisho iyagoo isticmaalaya ciidanka xasilinta oo aan hore idinkugu sheegay oo ah ku dhawaad 900 ilaa 1000 oo loogu talagalay inay soo celiyaan amniga magaalada Muqdisho ciidankaas xasilinta waa ciidan Soomaaliyeed oo isugu jira military police iyo nabad sugid waxay ii sheegeen taliyaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho inay degmo walba bilaabeen inay ka hirgeliyaan in ciidamadaas ay ka shaqeeyaan in la isku soo dhaweeyay degmo walba gudoomiyaheeda
degmo walba taliyaheeda booliska degmo walba nabad sugideeda waxaan sidaas daraadeed marka u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in maalmahan laga bilaabi doono lana dardar geli doono sugidda amniga magaalada Muqdisho sida liigu wargeliyay maanta laakiin waxay iga codsadeen taliyaha iyo gudoomiyaha inaan shacabka la wadaago waxaan ka codsanaynaa inaad la shaqeysaan ciidanka waxaan ka codsanaynaa inaad soo dhaweysaan ciidankana waxaan leenahay idinkuna u tura shacabkiina ahmiyadda ugu horeyso aan leenahay waa inaan shacabkeena u adeegno turida in loo turo marka waa qaybta ugu horeyso adeegida shacabka ma santiin. Wassalaamu calaykum warahmatullahi